cabdisatar amiin wuxuu kula nool yahay gurigiisa 70 masas ah oo ku yaala magaalada Dahoog ee gobolka Kurdistan ee dalka Ciraaq. Maqaarka masaska waxaa loo adeegsadaa soo saarista daawooyin dhaqameed, wuxuuna aaminsan yahay in la ilaaliyo masaska halkii la dili lahaa. 60 jirkan Ciraaqiga ah oo kaashanaya qoyskiisa ayaa masaska korinaya in ka badan 30 sano, wuxuuna sheegay in qaarkood ay sun leeyihiin. Amiin wuxuu tilmaamay in markii hore sida dadka kale uu xanaanaysan jiray xayawaanka dabjoogta ah sida bisadaha iyo qooleyda, laakiin wuxuu ogaaday in dadka badankood ay necab yihiin la macaamilka masaska, caruurtoodana ay ku barbaariyaan in masasku yihiin cadow. Sababtaas awgeed ayuu gurigiisa ugu korinayaa masaskaas in ka badan 30 sano. wuxuu intaasi ku daray in gurigiisa ay hadda ku sugan yihiin ilaa 76 masas ah oo ay ku jiraan noocyo aan sun lahayn. masaska cabdisatar ayaa sanad walba xilliga dayrta xuub dhacsada, gaar ahaan bilaha Oktoobar iyo November, isaga oo ururiya xuubkooda si loogu isticmaalo daawo ahaan. kaniini uu ka sameeyay maqaarka masaska ayuu sheegayaa in si dabiici ah loogu daweyn karo baabasiirka, dhibaatooyinka mindhiciraha iyo xanuunada kale ee uu ku jirta ku dhaca, isagoo xusay in uu tan iyo sanadkii 2006 waday hawshan. cabdisatar wuxuu sharaxay in xiisaha uu qabo masaska uusan ahayn kaliya inuu ka faa'iideysto maqaarkooda oo daawo dhaqameed ahaan uu sameeyo, taa beddelkeeda waxay u tahay ixtiraam xamaaratadaas uu rumaysan yahay in la ilaaliyo. wuxuuna raaciyay inuu inta badan badbaadiyo masaska in lagu dilo aagiisa, isagoo doorbida inuu gurigiisa geysto halkii la waxyeeleen lahaa.